wafdi ballaaran uu hogaaminayay wasiirka wasaaradda horumarinta macdanta iyo tamarta Somaliland Jaamac Xaaji Maxamuud oo maalmihii u dambeeyay howlo shaqo u joogay magaalada Ceerigabo ayaa safar kormeera ugu ambabaxay dhanka waqooyiga buuraleyda dahabka laga helay ee deegaanka Cirshiida waxaana wasiirka socdaalkiisan ku wehelinayay gudoomiyaha gobolka Sanaag maayarka degmada Ceerigabo taliyaha qaybta booliiska xildhibaano salaadiin la taliyaha wasiirka macdanta iyo tamarta isuduwaha wasaaraddaasi iyo mas'uuliyiin kale oo aad u tiro badan kulan ballaaran oo xog waraysi laba geesood oo ay halkaa ku yeesheen waftiga wasiirka iyo dadka deegaanku waxaa ugu horeyn halkaasi ka hadlay maayarka degmada Ceerigabo mudane Ismaaciil Xaaji Nuur taliyaha qaybta booliiska gobolka gaashaanle dhexe Salebaan Ducaale Ubaxle gudoomiyaha gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan iyo mas'uuliyiin kale wafti culus baa idinla jooga qarankiiba ka socdaa sidaan idiin sheegay waxaa hogaaminayay wasiirka macdanta iyo tamarta Jaamac Xaaji Maxamuud wuxuu yimi halkan inuu la kulmo dadkan deegaanka oo dadkiisii ah oo arko bal meeshan xaaladeeda iyo maxaa arrin yaala iyo maxaa tala ah wasaaradda macdantu iyada faahfaahinteena siin doonta waxay mar walba iyada u qaabilsan tahay macdanta sidii ay bulshada u wada gaarsiin lahayd ee looga faa'iideysan lahaa faa'iidada koowaad innaga leh degmada Cirshiida leh gobolkii Sanaag baa leh qarankii baa leh waa marka maareynteeda iyo nidaamkeeda iyo horumarkeeda aynu meel uga soo wada jeesano waxaan leeyahay nabadgelyada doorka uu leeyahay bulshada qaadayna hadii ay ka dhigo waxaan ku codsanayaa taliyahan haddii aan shan askari oo booliis keenay haddaan in ka badan keeno oo aan bulshada meesha ku nool la shaqeynaa waxba baraka yeelmayso maanta wasiirkii macdanta iyo tamartuna uu joogaa haddaan awal agaasime iyo aniga iyo aan idin soo gaari jirnay maanta wasiirkiina waanu keennay marka hadalka badin maayo reer Cirshiido laakiin horumarka iyo isku duubnideena aynu isku ogeyn inaynu ku dadaalo ballantaa maanta iyo qaada sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay waayeelka deegaanka Cirshiida oo soo dhaweeyay wax kasta oo bulshada deegaanka horumar u horseedaya oo ay xukuumadoodu u wado dalkii dahabkaanu nahay dahabka laga helay dibadda laga gurtay dawladana cashuur ka qaadin cidi wax ka qaadin nin walba wuxuu helay iska midhaystay anaga waxayagii waxba qaban qaad baanu siisanay wixii dibadaha aanu ka guranay waxaanu leenahay inaan soo dhaweynaynaa dalka hadii wax dadka wada gaara oo dalkana wax u qabta waayeel iyo dad mutacalimiin wax kale ma soo baxayno meel ma marinayn laakiin dadan maskaxdooda ku filan oo dhalinyaro ah ayaa de wax xirxirooda oo meelahaas oo iyana oo iska luma haddaba haddii faa'iido xukuumaddu ay noo hayso tan ka ballaaran dee diyaar baan u nahay waan la shaqaynaynaa ninka haddii shirkadda ugu horeysay ee muddo meeshan fadhiday ee qalab ka dhigatay ee muddo salfeyga ku waday waa cabdikariin waxaanu ka dhahay raalli halkan maanta aynu joogno waa Cirshiida maantana deegaanka ama xaqaa noqoto maxaa noqoto wasiir meel bid qabtaa ma jirto umana ay talin iyana ma tashan halkan talay rabtaa tala guud ay luudhiso hareeraha ka fadhiyo bay horta rabtaa waana loo talinaya mar haddii maanta culayskan inta leego maamulka ay nala joogo oo aad lambar 1 ka tahay amniga waynu qaybsanaynaa qaybtiina qaadanaysaan insha Allah bismillaahi kariim degaankuna weydiin baahan yahay faa'iido badan lagama helin nin waliba nasiibkiisu filayay wax se ka macaan mar haddii la helo shirkado iyo cid wax ka qabata oo run ka gaadha diyaar baan u nahay waana soo dhaweynaynaa iyo degmadu waa nabadgelyo wax dhibaato ay kama jiraan adigana waa kugu soo dhaweynaynaa dad kala duwan fara badan haddii doonaan isku luqad baahayn kala ilaalintooda isku ilaalintooda iska ilaalintooda intaba waxa tuurta ku qaatay ilaahayna la garab galay waa waayeelka deegaanka gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda macdanta iyo tamarta Somaliland Jaamac Xaaji Maxamuud oo ka warbixiyay ulajeedada ay halkan u yimaadeen isaga iyo waftiga uu hogaaminayay haddii maanta waxa dhowr oday oo hadlayay ilaahdeen horena loo kuma iman jirin waxa maanta oday baa lahaa runtii afka ku balaadiyay waar dahabka la arkay ya waar waa dhabo dahabka waa la arkay meel khayr yimaado meel khayr yaalo والله imanaya waxaan soo nimi inaan gurano uma naaniman inaan waajibaadkayga qaran ka gudano oo ah in si bugle leedin ka faa'iideeyay idinka taasaan mas'uuliyadaydu in dadka wixii khayraada
ee ilaahay ku manaystay loo raadiyo loo soo saaro si dhaqaalahooda loo kobciyo wax isaga bedelaan si caruurteenna ubadkeenna iskuulo loogu helo si bulshadeenna caafimaad loogu helo si aynu wadooyin u helo si aynu biyo u helo nadiifa waxaa soo dhib waxay ku xidhan yihiin dhaqaale meel dhaqaale jiray uun baana laga helaa haddii la maamulo waa sidaa sheegay waa taa idinkaa sheegaye dee 4-5 sannadood baa wadeenuun reer Carshiidow iyo wax idinka mid ah iyo wax dabadda idinkaga yimiba waa wadeen horumar lagama gaadhin in wixii la maamulaan markaa ugu talagal sida aynu si wanaagsan looga faa'iideysan lahaa idinku uga faa'iideysan lahaydeen gobolku uga faa'iideysan lahaa dabadda qarankuna uga faa'iideysan lahaa weelaan la helo baa lo'da la maalaabay Soomaalidu tiraahdaa marka deegaanku faa'iideysto baa qarankuna faa'iida waxaan marka hore cidda ugu horeysa faa'iideysa waa deegaanka hal la isla sugo oo bisika hal loo qabto barakada ku jirta inoogu duceeya in ilaahay wax khayr qaba inaga siiyo meesha waa Cabdirasaaq Xaaji Axmed warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Ceerigaabo